مدني منتخب ديمقراطي بإرادة شعبية حرة في أعقاب ثورة سلمية عظيمة شهد لها العالم كله. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono taariikhda Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee Masar. waxaan warbixintan kooban idinkugu soo gudbin doonaa taariikhda geesiga Carabta Afrika ee Masar. maxaa ka dhaxeeya madaxweynaha hadda talada haya Cabdilfataax al-Siisi ka soo saaridii dhiiqadii madoobeyd garabkii walaalnimada waayay ee Mursi uu fidiyay al-Siisi iyo ninkii uu garabka ka soo qabtay ee ugu dambeyn xabsiga u taxaabay. في مسيرة البناء والنهضة سعيا إلى ما يتطلع إليه شعب مصر لإقامة الدولة المصرية الحديثة، الدولة الوطنية الديمقراطية. مثلهاي جريدة محمد مرسي waxaa ka dambeeyay Cabdilfataax al-Siisi sir qarsoodiyaha ayaan idinkaga hayaa. waxaan sidoo kale ku hayaa wax badan oo ku saabsan madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar oo si xor iyo xalaal ah loo doorto. muxuu ahaa hadalkii ugu saameynta badnaa ee uu Masar kaga tagay Maxamed Mursi? muxuu ku waayay jagadii madaxtinimada ee halka sano ahayd ee uu Masar ka soo qabtay? kaalin intee la eg ayaysa ku lahaayeen wadamada reer galbeedka in Mursi xabsiga ugu dambeyn xanuun hayay ugu geeriyoodo? ma isleedahay Mursi waxaa dilay CIA-da Mareykanka halkan kaga bogo sidii u dhacday noloshii xabsiga ugu dambeynta ee uu markaa Maxamed Mursi u geeriyooday? magaciisa oo dhameystiran waa Maxamed Mursi, wuxuuna ku dhashay dalkiisa hooyo ee Masar, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Shaqiya oo ah waqooyiga dalka Masar. waxa uu dhashay 8 Agoosto 1951, wuxuuna dhanka waxbarashada ka gaaray heer aad u sareeya isaga oo bartay cilmiga injineeriyadda ee Jaamacadda Qaahiro International University. marka laga soo tago heerarka waxbarashada ee Maxamed Mursi, wuxuu ahaa nin geesi ah oo aan hadalka la gamban, waxaana intaas u sii dheereed geesinimo lagu daray daacadnimo oo uu kaga dunaa madaxweynayaashii dhammaan soo maray wadanka Masar. dad badan oo Masar ahaa ayaa aaminsan in ay waayeen aabihii Carabta madow ee Afrika, Maxamed Mursi, 17 Juun 2019. Maxamed Mursi markii uu dhimanayay waxaa ku socotay dacwad maxkamadeed, isaga oo ay dacwad ku socota ayuuna geeriyooday, isla markaana u geeriyooday xanuun hayay oo dayac iyo sidoo kale xabsiga lagu ilaabay. Yurub inteeda kale hadda oo bilo laga joogo waxa ay ka didaa maqlida magaca Mursi, wuxuuna taas ku mutaystay geesinimadii iyo dadaalkii uu markaa isagu u galay. waxaana Mursi lagu yaqaanaa hadallada aan gambadka lahayn iyo sidoo kale weerarada afka ah ee tooska ah. waxaa jiro hadallo dhowr ah oo uu Mursi kaga tagay adduunyada, kuwaas oo ay xitaa dadku adeegsan doonaan marka ay la kulmaan cadaadis iyo sidoo kale cabsi nolosha ah. hadilina libaaxyada wadamadiina si aysan idin cunin eeyaha cadowga. waa ereygii ugu caansanaa ee uu ka tagay geesigii Masar Maxamed Mursi oo nolosha ku midoobeen hawlkarnimo iyo daacadnimo. qofkii jecel waan taageersanahay, qofkii necbna waan necbnahay, qofkii jecelna waan jecelnahay. waxa uu ka yiri hadalkii taariikhiga ahaa ee uu Mursi kaga jeediyay khudbadii xarunta qaramada midoobay ee New York 2012 isagoo oo madaxweyne ah. wuxuuna markaas ka jawaabayay sawirro gaf loogu geystay suubanahayna Maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ha ahaatee. Mursi ayaa bil laga joogaa xilligii dhimashadiisa maadaama uu geeriyooday 17 Juun 2019. hadda dunida qayb ka mid ah ayaa wali ilmeynaysa oo uu sabab u noqday Maxamed Mursi. barnaamij dhiig badani ku daatay ayaa bilowday fashilkii reer galbeedka oo adeegsanaya Cabdilfataax al-Siisi oo markaas ahaa taliyihii ciidanka guud, ayaana bilaabay in uu fashiliyo ninkii dhiiqada ka soo saaray ee u sahlay in uu generaal noqdo. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybta koowaad taariikhda tixanaha ah ee Maxamed Mursi
iyo sidoo kale ugu dambeyn halkii uu ku geeriyooday sababtii markaa ka dambeysay in xabsiga lagu hayo isagoo xanuunsan. intaas iyo kuwa kale oo badan ayaad kaga bogan doontaa documentary-gan tixanaha ah. fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka sidoo kale furo gambaleelka. waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikho iyo xogo kale oo intaas ka badan.